الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برنامجكeenii qisooyinka aadamaha qaybtiisii 12aad oo sidii caadada ahayd martiigu yahay ama uu ila daadinayo walaalkay Maxamed Cabdi Rabbi Ugaaska daawadayaal qaybtii afraad ee sheekooyinkeena qisooyinka aadamaha ayaan idinka haynaa wax ka soo cusboonaaday maadaama oo sheekadii qaybtii afraad dadkii la socdayba aynan dhamaystirmin oo ay taagneyd meel qabya ah sheekadana dadkii ay dhaxmartay iyo dadkii ay ku saabsanayd ay noolaayeen gabadhii aynu ka sheekaynaynay mustaqbalkeeduna uu taagnaa meel aad iyo aad u qabya ah wiilkii ay jeclaydna intii ay kala maqnaayeen uu ka guursaday wiilkii nolosheeda dib u dhigay ee dhibkii oo dhan ee daraadii ay u martayna uu ka danaystay oo uu furay qayb cusub ayaan idinka haynaa oo gabadhii nagala soo daristay sheekadeennii u dambeysay qaybtii 11aad qaybtii 10aad farqadeedii labaad ku dhamaatay way daawatay gabadhii ay ku saabsanayd sheekadu waxayna kaga soo falcelisay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin bahda qisooyinka aadamaha annaguna waanu ka qaadnay waxay tidhi ma jecli inay magacayga iyo magaca wiilkayga sheekada lagu xuso laakiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ina soo duceeya waanu u ducaynaynaa ilaahay iyada iyo wiilkeedaba kuwii nolol qiimo badan ku noolaada mustaqbalka inta adduunka uga dhiman allah ka dhigo aamiin ayaanu leenahay waxay noo sheegtay gabadhaasi sidoo kale inay wiilkeedii uu hadda soo fiicnaanayo balwadiina uu yareeyey uuna soo hoydo oo uu xaafadda yimaado habeenkii ilaahay ha ugu wado oo ha ka dhigo mid baari ah mushkilada iyo dhibkaas tan iyo yaraanteedii ay nasiibka u yeelatayna ilaahay ha ugu bedelo wax ka khayr badan maantana waxaynu gelaynaa qaybtii 12aad oo uu inoo hayo walaalkeen Maxamed Cabdi Rabbi Ugaaska ku soo dhawow ayaan ku leeyahay mudane aad ma sanaa Afkaado Maxamed sida ka dhawaajisay gabadhii qisada ku dhacday laba gabdhi ahaayeen labadiiba waxaan u maleysaa inay isku mid meel ka yihiin labadoodu ilaa hadda ma guursanin laakiin waxaa soo diristay gabadhii horeysay oo qaybta afraad ee qisooyinka aadamaha inay hadda dhamaaday inay guursato oo haddana loo fadhiyo inay yani guurkeeda reer dhisato insha Allah reer khayr qabo ilaahay noga bariyana inay dhisato marka dadka ma daawash waxa uu sheegaynaa qisooyinkan meelaha ka keenayno ama dadkii ku dhacday inaan xogtooda hayno oo wili la socno aad iyo aad qisada aan gudagalna marka qisada 12aad waxay ku dhacday marka gabar iyo wiil isjecel oo markaas falcelin dhaxdooda imaanayso dhinaca hooyooyinkooda labadooda sodo labadan way isjeclaayeen marka qisada waxay ka dhacday dalka Kenya aad iyo aad gaar ahaan dhinaca qaxootiga ka dhacday aad iyo aad waxaa dhacday marka gabadhii wiilku way isjeclaadeen sax meel bay isku barteen kadib dhaxdooda waxaa dhaxmaray jecel aad iyo aad jaceelkii marka uu sii dheeraaday wiilkii ma shaqeeyo gabadhiina waa guri joogto guri hooyadeeda iskaga nooshahay sax marka wiilka cidooda marka asiga waxaa shaqeeyo markaas muusiga abahood ilaa uu naxariisto uu dhintay wiilka weyn asi jiro uu shaqeeyo marka oo cid biil gacan ku hayo asina markaas wili muu guursanin xaasna ma lahan laakiin murugtu waxaa saaran cid inuu yani garab qabto oo garab taagnaado taasa ugu murug badan inuu yani guuri xaas yeeshto wiilka waxaa culays saaran maadaama aabahood dhintay inuu booskii aabbo uu buuxiyo ubadkii iyo hooyadii iyo reerkii gacanta ku hayo marka wiilka marka waxaa gala damac guur gabadhii u jeclaadeen marka waxaa maalin habeenaha kamid waxaa aragtay gabadhii hooyadeed baa aragtay labadooda wada taagan oo waqtigoodana way la socotay marka wax dhexmarayo maalinta way u wacday waxay dhahday marka way fiican tahay inaad guri yeelataan oo mustaqbal yeelataan intaa wadooyinka dadka lagu sheekaysan lahaayeen maamada marka way go'aamisay maamadu waa gabadha hooyadeed marka wiilkii gabadhiba intay wada yadhay ku tiri inaad guri yeelataan baa ka fiican inaad wadooyinka isistagtaan wiilku wuxuu dhahay hayuu dhaw u ogolaaday sax asagoo markaas baxay oo hooyadiisa ciddiisa ula tagay marka inuu gabadha guursado sax maamo hooyadiis marka waxay dhahday marka horta midku koobaad walaalka ka weyn oo guursanin wuxuuna ku mashquulsan yahay gacanta inuu aniga nagu hayo adigii haddaad dhammaad inaad guursato soo ma fiicno inaad meel isku saarto koo shaqaysato yani biilka walaalka u keena ma wax ku cunaysaa ay ka wada maamada markaas wiilka marka waxay u dhawaan shaqaysanay laakiin gabadha horta lay guuriyo maamada waxay dhahday marka inaad guursato horta waxa ka horeyso inaad adiga shaqaysato sax
oo ogaano inaad meel isku saari karto wiilkii marka maamada meesha ku cadaadisay marka wiilkii marka wuu adkaysay waa marka maamadii hadalkeeda iyo gabadhii jecelkeeda iyo maamada sodahdiisa waxay dhahday oo markaas gabadha guursanin ku dhiirigelisay marka maamadu wuxuu ku dhahay haddii saas tahay gabadha aniga meeshaan aan aadaa maamadu ku dhahay marka maamadu waxay dhahday saa haddii tahay bal wiilka walaalkaaga bal arrintan kala tashani wiilkii dhahday marka bal ninkii ahay hebel saan uu dhahay bal saan uu rabay sidaan sameynaa waxay dhahday hadduu guriga geeska degaayo maba diidin haddii kale cunto waa la kariyaa qaybta ku cunaa ka wada cunaa waxaan u tahruujinaynaa shaqo u raadiyo una shaqaysto wiilkii marka waxaa la gudagalay in la guuriyo gabadhii loo soo guuriyey guriga hooyadiis qol gees laga dejiyey oo markaas loo hagaajiyey ciddii marka kale oo gabadha hooyadeed iyo familigooda waxay marayaan marka process bixitaan guriga qaxooti waa laga baxay marka cidda wuxuu dhahay marka hatee maamada haddii baxday waxay dhahday ha ka dhib laaban anaa wax lay tari doono insha allah gabadhii marka waxay noqotay inay guriga gees ka degto ay cuntada cidda gees ku cunto iyadoo ku qanacsan maamadiina meeshay kula joogeen marka ciddii marka oo familiga gabadh dhinaca hooyadeed ah waxaa u soo baxay brooskii bixitaanka way baxeen marka macal gabadhii mayo gabadhi way ka hartay gabadhi waxay ka eed marka haddii waa taqaanaan ka haray leeyihiin qayb kale iyada ahayd marka qayb waxaa baxay marka bahdii fara badneed ciddo iyadii waxaa ka hartay iyo gabar yar oo ciddaa ka haray ciddii waxay tageen america markii america tageen gabadhii hooyadii waxay u bilaaday markii bishii inay lacag usoo dirto ayna ku dhahdo iskaga guur ciddaa dhex degan tahay guri kareesto wiilkiina anaa la meel lay saarayo ilaa markaas waqtigaasna wiilka wax shaqa muu sameynin marka dukaan yar oo shaqo ka bilaabay haddana wuu iska dhaafay bas biilkii wuxuu qaadanaya marka maamada sudadeeda soo dirto gabadhiina wuxuu dejistay guri gooni ah waxaa siduu marka biilku watay markan uu guurayay ay maamada sodoodeeda usoo diraysa biilka reerkooda ma wax dhib kala kulmaysa uu iskaga guuray maya markaa wax dhib kalama kulmin laakiin waxay markaas maamadaas leedahay waa isagun baa jeclaystay maamadana markaas awalba waxay dhahday markay bixaysa balanay ka qaaday marka guri gooniya degay marka wiilka marka gabadhii waxay u dhashay marka hal cunug way isku qanacsanayeen maamadii weli waxay dhahday dukaan baan ku aas-aasaya oo lacag baan kusoo diraya sidaad u shaqaysto yani nin subax meel u ka laho ood shaqaysato u noqotid yani lacag baan kusoo diray marka wuxuu dhahay dukaan ma rabay gaari inaa gataa rabaa aan ka shaqaysto baan noqo darawal gaarigiis kuwad ku socdo waayahay dhahda marka lacag bay u ballan qaaday oo adi fiican markaas gaari lagu gadi karo gaari yar taxi marka waxaa gudagashay wiilkii lacagta in loo soo diro gaariga taxi lagu gato gaarigiisu gurigiisu ku tago ciddin uu ku biishto hadii nin taksiila waa taqaanaa dad badan u dhexeeya mujtamacna uu shaqeeya oo lacag ka raadiya gabar bay isbartay marka oo yani markaas taksiga iyo tacaamulkii gabadhi waxay dhahday marka walaalow waa shaqaystaa waa isguursano guur iyo damac baa galay inuu gabadha kale u guursada damac galay bas waa taqaanaa nin damaciisa gabadhii wuu ku ogolaaday bal ameel wada degan u dhaa marka marka wuxuu dhahay meel aan wadagan muxuu rabaa markaasiga inuu yani maalmaha habeenkii iyo waqtiyada dhaxa bas inuu soo joogo wixii 3 saac 4 saac ka dambeeyay gurigiisa uu soo hoydo gabadhan uu meel u deganaato oo sheekada la fahmin noqoto nolol qaas ah isaga bareefado ah tan gurigiisa u deganaato tan hadii sheekada la fahmo biilkii waxa laga jarnaa usleeyaa iyo biilkii gaariga iyo waxna baa isla boodboodaya marka wuu qarsada marka hadii maamada hooyadiis meel yar bay ku leedahay qudaar bay ku gadataa magaalada gabadha marka waxay ka adeegataa qudaarta hooyadiisa ka adeegtaa waa gabadhii labaad uu guursaday isma garanayaan meelay degan tahay gabadhi way walaacday marka waxay ku walaacday cambahan markii la jaro waxay ku walaacday cambahan la jarjaro basbaaska lagu dardaro maamada iska fadhiistaa marka way iskala sheekaysataa sayidadii gabadheedii ka degan tahay gurigaana degannahay meeshaasaan nahay yaa ku qabo waa marka waa taqaanaa maamo iyo gabar wax dhexmaraya way soo wareegatay waxay u sheekaysay marka inuu wiilkeeda qabo marka ma wiilkeedii ahaan inay garanaysa u tiri mise wiil kalga u tilmaantay wiilkeedii maamada way keentay magaca waa abtiriskii inay hooyadiis degan tahay xaggaas
asi marka hooyadiisu inay joogto uu sheekay laakiin qudaar magaalo gado ugu darin marka wixii waa wax iska qarso oo qarqari oo waqti fiican la seelin marka way yaas maamadii dhahday kan taksiilaha ma ka wada dhahday waa asiga ma taqaana dad inta keenan ku arkay dhahday marka maamadii maamadii waqti galab alaabta way xariistay wiilkii waa dhahday guriga uga maaw waxay dhahday horta in rag baata geesinimo sameysay aad guursato waa geesinimo ninku jeebkiisa wax ka dareemo guursadaa waqti lacagta la ilaado lahayn lacagta hadda haystid inaan lahayn waxaa lahayn meel lagu ma gaaro hadii cidii waxaan ku soo tayn oo ku siiyeen hadii sheekadan ay maqlaan waxay kula tahay hadii meel blash ay guriga ku soo noqonaysaa jeeras waxaan ku karnay oo geeska cunaysaa ay maxartaa marka hooyo hadda maxaa sameeyaa waa gabadh horta walac bay ku tahay gabadhan fogey ariyaa saddex helay marka saddex mid ka mid daji gabadhaas meeshaas ku degnaato ilaa ay kasoo umalayso ay kasoo umalbaax meesha ku degnaato wixii dambe soo kordho meesha ka qabanayna marka talada maamada qaatay marka wuxuu leeyahay marka xagaas ku dejinayaa oo ku raraay marka maamada hooyadii ma ku baray u dhaxmar u sheegay marka inay qalad tahay inay soo sheegto hooyadii misaana ku bari ana ku baro hooyadii maamada loo keenay way nahay gabadhi marka way maamada u sheekaysay maamada wax dhan marka maantii sheekada ay sheegtaan dareeman hadii wiilkayga yahay saas darteed wiilkayga ula tali taladana qaato meeshaas iska guuraadiyo wiilkayga intaas ka joogo in ka shaqeysto hadii even taksiilaha uu wareega moota saddex xil uu tagi marka waxa ka tagaa ku soo booqdo markuu imaadana intuu saas ka joogo sidii qaatay marka ninkii gabadhii marka uma batagabo tii xagga u geey tii u fogay uma batagabo soo maraa marmar iyadoo waxa uu dhaay bostaajada Hebland jooga igu ma way u tagtaa uu arkaa gaarigiisa ku sii wataa marka customer ku taanu sii wataa marka iyo way ciilood marka torí qaraabo leh dadka u wactay waxay dhahay ninkan saan u sameeyay hadii kala sheekadeedu waa banaanka soo dhigaan oo ku dhaada marka roobay waabay marka saas ninkii uu yarnahay marka wuxuu dhahay walaalay mar hadda kadib habeen baan kula saaxan hatee waxaas ku dhig dad baan u shaqeeyaa xawaalada xaq oo ay farsamaan sameeyni wali wadan waa u suurtagelaysa ninkii inuu sameeyo waxaa dhacday gabadhii marka wali walaalkeeda u sheegtay waxay dhahay saas baa jirto ani waa dhal raba ninkii qaban meesha jooga dadkaas oo naga dhashtay oo soo raadin marka waa loo imaado Soomaali fadhiyo waxa la gabar hebel laahay ma qabtaa meesha ma gees hadii ma aradu yaad kaana dumayda dinin walaashida ma ku dhaw ku fiirbi ku dilaa balaa taagan marka waa gabar maxaa ka timaastaa marka rag badan rag ahay maxaa ka timaastaa gabadha inaan qabo niyo saas ka timaastaa qalad lagu dhacaa saana ka dhacday ninkii uu calaacay marka maxaa marka maalmaha meeqa waa marka doob bir wax gabdhaha kala u kala qayb baa warba taagan saamku maqal gabadha masjid uu diroon ku furay way gabadha masjid ka aragtay waa kale u soo falcelisay waxay dhahay ninkii saas u dhahay miyaad arbaxdo miyaa waxba ku sameysay may afna rag loogu tagay saa duu sameeyay bal ku noqon u dhaadane uu ku noqdo markan ni wuxuu dhahay dii aad furis xatii maxaa ay u dhihi weysay walaashaada waan ku furi oo ragnimo u halweysay marka wiya wuxuu dhaaniyo saas ma ahan aniga saas jirto gabadha xatii walaashaada waxaan ku biilsaana ku biilaa aniga maalkan dadkaas wax ii tareen iyo calaalkiisu keenay markii uu sheekada markaas jirtay wuxuu dhahay saas dii tahay gabadha meherkeedana si biilkeedana waa laga rabaa diyaar aan wahay ilaa gabadh umasheeda iyo biila lagu baahay markaas guriga ku joogayso waan siina u dhahay marka sidoo uu balan qaaday marka intaas sheekada dhicaysa gabadha uu qabo hal eray may maqleen ninka uu farxay marka wuxuu la sheekada diisaa kugu dantay midda ma isku taaban sidoo faraha uu qaaday marka ilaahay wuxuu mahdiyaa ninkii haddana hami kale u yeeshtay inaan taro kale falaay ku qorno idina bixi rabta waxay dhahday haddaan ku sheegani oo kaarkan kugu darsan waan ku qaadi bo biilkan ugu soo diraayo America laga soo diraayo waxaan lagu guumeysanayo ana life aan ku geyn America laga soo biilan ku geynay dhahday waxaan tagi UN waxaan dhihi ninkan uu qaba mana kala hari karno kaarka lagu daro kaada laga soo jari waan isku dari hal meel aan ku wadaynaa haddii arinta runta u dhahay ii samee America tagay
marka dadka qaxootiga jooga markaas muhiimadooda koowaad boofis waa inay baxaan hay meeshuna waa meel kulul Amerikana baraf baa lagu sheegay marka way isleeyahay marka dadka meesha laga soo bilaayay hatag xagga tag ba soo fiiray haye ninka gabadhi marka way dhiirigelisay sax hayuu dhahay marka marka UNT tagtay sidii hod u sameysay kaarkii u soo jartay marka asii xaaskiisana waa kala kaarsan ku sheegay labo kala family kaliya ina beeday kula jirta asina cidooda kula jiraan hooyadiisa marka aragtay maxaa uu kaarka u jarnaysa dhahday oo nuu sheegay marka sheekada ugu jarnay wuxuu dhahay waxyaabo kala sheegay security iyo maamada uu iska leexiyay marka kaarkii uu kooliisa soo qaatay gabadhi uu keenay meesha tageen waa lagu buuxiyay marka waxa la diyaar waay UN ta marka laba mar imtixaan maraysiin kadib wixii la soo baxo waa nasiibkiina marka waxa dhacday ficilkii waan ku sameeyay adiga guurso dhaad marka saasmi aha hayuu dhaa marka maadaama falayd ka horeeyay iyagu soo qoytima isagii hooyadii aslabada iyagu wax ma marin dadka marka qofku waa gabadhu wax bay martay gabadhii wax ma marin hooyadeeda baxday dadka waa kaar gooniga nasiibkaas u hesho waay iyo marka hooyada wuxuu baxay medical markaas cuniga ka xanuunsanay ma waxaan ku leeyahay hooyadii isagu soo muran kula jirin kaar process oo bixitaana mayo dadka kaar leeyahay qofka sabab nasiib uu ku helaa processka iyo anta u garato oo yani soo dejiso marka asiga wili lama soo dejino dadka baxitaan ku jira marka gabadhu may dhegneed way dhegneed oo way martay waxay martay marka way jansis ninkan kaarka ku dartay ninkan wuxuu dhahay tii marba kaar lagu daray oo bixitaan aabo ko waa wax cad marka u jeedo mugtay wuxuu gabadhan guurso marka waxaan xasuustaa gabadha xaaskiisa inay cunto qado u diyaarisay uu soo orto soo wacay wuxuu dhahay ma imaanay maanto wuxuu ra gabadh inuu wado oo meel kale geeyo soo meeray marka uu soo celiyo marka gabadh way kadib waxay dhahay horta guriga marka aad dhisto kadib ma meerka dhaca hayeena marka guriga marka hagaajiyay marka oo qol ah way kadib waxay dhahay laba qol ka dhig ma gabadh marka way ka amar badan haweenkan wuxuu leeyahay boofiskaada iskaga ciyaarin marka laba qol ay u hagaajisay deeri ay u hagaajisay oo xirtay asaa waxay u hagaajiyay dhabka uu xiray marka uu hagaajiyay waxa dhada marka hadda waa ismeersan karna labadeena waayahay way isku afgarteen ismeer marka waxa jooga walaalkeed iyo hooyadeed aabeen wuxuu jira Soomaali marka museega waxa asku ku jiro marka xagga isku day museega waxay dhahday walaalkeyga anaa uu kula tagay oo isku raacayna walaalkeed uu arkay inuu yani kaarkan ugu soo diray wiilkii maamada way la socdeen sheekada museega wacay intuu u sheegay walaalkii markaas waxay gabaati u dhiibay sheekada uu soo afjaray markuu meesha gabadhay waxa hartay in loo galbiyo labada caadi aroos caadi tan dhuumasho ma tan waa caadi guriga geena gabadho tii hore dhuumashadu ku soo tagay warbaa joogay hay bas inka marka gabadho marka turme ma loo garaacay suuxii ma yorto cidii wuxuu geeyay neef ari waa loo qalay uu soo yeeraysto dadkan aroos waa la samaqay qaxootiga waa la saarkay wixii meesha laga qeylay yaa tuula yare marka gabadh way maqashay in aroos oo jiro marka suuxii way soo adeegatay gabadhii oo qabay qaday ninkeeda u karsatay waqtiga caadadiisa 6 saac markuu soo ruuxa wuxuu raayay inay qadiis u cuno gurigu imaaday wuxuu dhahay waan soo yar daahay waxay qadada waa diyaar ee imaaw markaas soo alaab ka qaatay guriga oo rabo inuu meel geesto oo yani macruus iyo wuxuu qaatay adii farsamo kale oo la baxay markaas bac ku qaatay gaarigiisana uu sida qaadista u tagay gabadhii qadada ma imaan marka way wacday wuxuu dhahay mashquulsanahay meel kale aaday dad customer qaaday sidii qadadii marka waxay dhahday bal casho ugu dhigay meel u diyaari waqti casho la gaar marka way wacday marka 3 saac markeeda wacday qaxootiga fiid waa la saxdaa waa la kala hoydaa way yaabtay ninka saacada maqan maxaa way wacday marka tii joogtaa wuxuu ku dhaca marka waa imaan rabaa waxay rusug telefoonka uu dansada marka bas marka qaxootiga waxa waaye gaarigiisu ku imaaday gurigii iyo arooska meesha laayada laga daara waa aroos normal gabar waxaa jirta cidda kula jirtay kaarka walaasheed laxmi ah meesha iska tagtay marka arooskii waxay aragtay gabadhan guri la sii gelinayo ninkan asan la socdaan oo labadooda asana la sii gelinayo oo gaarigiisu ku imaaday wali way fiiris way yaabtay bas waxay gabadha way yartahay way soo orday marka walaasheed u imaatay arintii u sheegtay marka dadada abay ninkaada guri sii galaayo u jeeday mas wiil saaxiibkiisa aroosanayo way ku wareertay marka gabadha 12 jireed markaas
marka gacanta ay soo qabsadeen marka soo socdeen guriga arooska imaadeen marka guriga marka arooska deerta banaankeeda dadaas ka fadhiyay marka gudahay si u socotay dalaq walaad gabadha marka waxay u gashay ninkii gabadha xalgu af u gelinayo baa isku qabtay meesha dhab asi marka gabadhii uu dilay marka tii soo duushaday oo guriga imaatay buu dilay guriga ku noqday waa darantaa iska socotaaday meesha isku qabsaday ilaahay wuxuu mahadiyaa ninka arooska u qabanqaabiyay gabadh waa qaraabo koow dadka meesha joogan gabadhii qaraabo leeyahay labo asiga lagu soo jeesto marka arooska meesha wixii yar dhulka dhulka la dhigay dagaal caadi ah dadkii oo hadii cuntada cunayay bariiskii waa isku daaday baad meesha wala dagaal meesha gabadha aroosada way carartay guriga iska hooyatay meesha marka qalaas dib ka dhacay guriga xad wala jiyo marka marka wax dhis waa mugtay dhulka la samay wala markii meesha isku baabiyay ma waxay noqotay marka xatee dhaawac soo gaaray qaar dhakhtar lagay marka waxa dhacay wiilkii inuu gurigiisa ku hooyo xatee gurigiisa ku hooyo iska dhoobay leen gurigiisa isla markii tii America maalin u taay hooyada wacday arintii u sheegtay abtii gabadha abtigeeda jooga marka oo asna meesha ka dheeran qaxootiga saddex heer kamid ah isla habeenkii 7 saac gaari u soo qaatay horta furaha gaari keen Allah asiga si gaar loo wada ma aqaan marka ciil galaas inuu gaari markii kilo geed ku dhuftay abti gaari yaarada ku jibay dhiig bahay ay had jajabay gadaal u celiya marka ugaasoo kula ku dhuftay ay niba ma xuday gaariga ma aduu jaba ustaad kuma qaarsan maxay isku dilaysaa Allah waa ciil darteedu dhahay waa soo booda ruushkiisa xuday guri ma wataas ma jiris walaayada dhaba inuu meesha nuga asaasay raasina marka meesha lagu qabtay abtigi waxa la hayay bal xala jiro meeshan waa qaraabaan ahne waa arintan hoos u dajiyaan lahay waa la soo waday guriga gabadha habeenka sana saaxday marka waxa la gabadh iska furaa la mar tii lagu biilayay marka hayuu dhaa markuu ogolaaday war isaga daray iska daray uu ogolaaday marka maamada sododiisa waa markuu dhahay horta intuu sododiisa wicin baa sheekadii waxaa maqashay gabadhii kale oo cunug dhashay oo cunugeeda ilaa 7 bilood u gaaray baa maqashay ninka arinta adduunku qasmeen oo wax kale sameeyay si u soo socotay gabadhii kale gurigeeda imaatay waxay dhahay assalaamu calaykum seetahay fiican walaalay waxay dhahay wiilka aan wato ilmaadu kamid yahay oo maxaa dhacay ninkaada iga dhalo waay saamaan ii qari ninkan waa saamba gabadhii markaas aamin daro aan caadi meesha ka heshay waa shakada way yaabtay وهذا ما المهي واسقاط وها إنك هذا غير معمد على صعته أنا أنت ما ضحتي ويوجد واحد مركو حلوة مركا معمد إيده وحي كاميرا قاطع مركا هو يده بيدا جو مشى زي قبل أسكن مسكين مركا لكن وحى مركا كوي نكبر معمد يوعد أنت وشكت هذا يبان أرنك على صوب بحذي هل كاس حال مرة حال أنت صوب مرة سكيوسو جور نيرو ما بده مركا المحل مستحن واستحن وصوّده أيوة مركا وحال سكوا فكرت مركا إن قبل اللي وضع أقول لك نيروبي أنت نيروبي قبل لك جرت إنك على جفرة وحال سكوا فكرت بس قبل مركا حال مركا حدا وان فرايا لكن تعرف فلان وقت فلاني أنا فرايا لكن أقوم قصبة ولا نك أنا حقوق عنك قاتل واي هلا مركا أبتيجي أسيء مركا ما هبين وذي مخرب وقتي واسك مودي وده سكوا مرة مركا بس وكاسو قبتك عندي سقبتي مركا أبتيجي توري ولا صباح مركا مركا صاري وده وان كدري يا شهادة ولا دايد شو أنا بقول قدلي نيوم أسكيد ديسيد هاي هذا كود فر مركا هذا فر مركا سد هذا فر وهم فر ولا سد حتى لا خاف فر ولا مركا جنيك نفسي سبت بسنة فرق وسيد دير مو عرّي فرين نقول ما يجلس هاي بس يودي أوتي وحده نيكو صفرة صدق ترى سوق هذا هذا وانا ديسون تاودا وانا سكن نقول يعني مركا يودي واحد أساس ميها يودي وين هذا مركا تايدا ذيك على مركا بس أبتيجي نقول مركا سياح يريدو كسي بحي قبل وايد عليه الدرس كمركا قاب وصوق قلنا يودي ماشي جيفت الله الماضي وعلى تابت محكون عنها وين قبل وين هذا مركا نحتم درادة يقول عليه يودي مر ماشي يلو بي واحد سي واحد الله محكا قدن أنت أوشكت مركا نكون مفرق إلهي وحوم هذه بريس واحد منك أو ما مركا أنت ولا ولا لي أنا وكجعل هاي وقع على ما بعد أنت واسك جل عشان تاي
waxay dhahdeen marka mid samee anada neero isfuracno haye intaas waxay is leedahay ninkaada ku wanaagsanaado meeshaan kala fogow mee waxaa la yidhi maxay durdur iyo dabaal galo hebel weligii ma daahiraa la yidhi marka ruux hadduu wax barto intuu waxaa la gacanta halkaa laga gooyo intaana dhaqaaqaba marka ninku waxa uu barto inta badan kama tanaasulo laakiin iyadu waxay is leedahay dad Nairobi ka tanaasuli haye waxay dhahdaa marka hooyadii oo sheegay arrinta maamadii u sheegtay maamadii waxay argay inay jecelahay oo ninkii wiilkii ka maarmo wiilkii soo wacday waxay dhahday wiilkii wax kasta anaa ku sameynaa gabadheeda marna ma igu xumeeyay haye isku afkartay marka abtigii sheekadu maqla marka ninkii cid iska maslaxay oo arrintii u dagan tahay oo guriga ku hoydo maqlay waxaan aqay marka ninka wuxuu ahaa inaan caadi ahay oo soo baxay wuxuu dhahay magaalada horta imaaday horta meeshii isku soo tagay imaaday uu imaaday sida ninkii aan sidaan ku soo ogaay aan isla marteen ma dib uu noqotay ana asaga kala bixin iska daa uu soo tagay marka waxaa jirta qaxootiga shaleema laga daawado ciyaar ninka shaleema ka soo baxay shaleema ka soo baxay diftiinka doon ku soo baxay inaa mudmud ku noqday minaa mudmud noqdeen markaas wuxuu ku leeyahay marka guri saaxiibkiisa bas sheeko iska qabsan marka abtigu uu daw socdaa si ku kala ninkan oo shaleema soo baxay u jeedeen guriga uu gala marka guriga uu galay jaakad madow uu qabo marka oo dheer markaas jaakadan dheer madow uu qabo marka bas meel uu iskaga suray nin saaxiibkiisa wuxuu inuu soo baxay jaakadii uu soo qaatay marka meel surneed ana jaakadii qurux badan ana isku kaabeynay jaakadii uu soo qaatay koofid soo dabaxay marka abtiga waxa ka dhacsan uu soo bixin intaan uu soo bixiyay qabo ninkan dhaawac waxa gaarsiiyay bal cabsi geli labada markii taal way isla jaakadina ninkan uu soo qaatay yani dharka way isleeyihiin labadan kii wiilkii hore ee gabadha qabay ee guriga galay iyo kan jaakadkiisa soo xirtay koofidina soo xirtay ninka markuu ku galay koofid ma wadin markii kala arko wuxuu yiri wakaas ninkuu soo baxay koofid buu soo xirtay wana fahmeen geeska aan kamara dheer marka labada gees ka soo maray labada marka laba tooriyo wata marka isleen ku cabsi geli ka cabsado gabadha baa ka soo bas ninka markii كنت أبتيه وابيه نكان لكن أنتوا تريد تقول نك مرة قعنت على فقط جل وكسي هذا مكان حنوس تدوا فعل بعلني جقل وكله تمرك عشان أنتوا هو يرى ولا كمرك بس الدين ويد ولا وقول فتاه فلا نكو علي ما يشون هذا نكجلي هذه يد لوضي وعز دام مثلا أبتيه المركب وحكاد عشان تموت دواء نكان وحفر له كل فنا ماني توري مقلنا صح ninka uu dhacay marka jaakadu saan oo noqon saan uu diifo ninka waxa ku dhacay dhammaan abtigi soo jeedo toorada mid leedahay ninka waan dilay oo naxay marka abtigi waxa ka qaldan subhanallah waxa ka qaldan tanigu way dhacday maxaa sameeyay meeshii maatay abtigi waxa qabsaday markii ninkii soo watay labadoodii oo soo watay ila cabsi gali yiri ninka dilay hada ay soo waday labadii isfiijistay marka isfiijiska saa marka waxa taqaana qaxootiga dadka markay soo baxeen way cabsoona shifta laga baqay kore laga fiirnaa marka in dadkan isxarbinayaan bas ii orodkii aan ugu gartay marka abtiga muuqaalkiisa la arkay gabadha abtigeed kiina iska baxay marka waxa isku hormaad doona marka wiilkii guriga soo baxay oo gabadha qabay oo markaas falka loo rabo inuu ku dhaco iyo abtigii naxsan oo tooridi wato orday wada iska hormaad marka looqi abtiga marka arkay kan uu fiiriyay tooridi ninkan waa arkay naxay marka dhinacan ka leexday abtigana uu iska orday uu yaa marka sheekada qaybteeda meeshaan ku gaanaysa qaybtu waxay noqon doontaa marka waxa la gartay in gabadha abtigeed iyo wiilkii gabadha qaba iska soo horbaxay way isgarteen gabadha abtigeed uu ka cararay kii kalena isna uu sii cararay gees buu iska leexday wiilkii kalena uu dhintay habeenkii markii waa soo baxay dadkii soo baxay marka wuxuu markii la kala tagay wiilka kala soo qaaday xaalada qoonsada marka inuu yahay wiilkii marka gabadha abtiga u ahayd uu ogaaday in jaakeedkiisa wiilkan sababsaday in ninka toorida la daydeynayna uu ahaa gabadha abtigeed abtiga uu carar marka laakiin kama bixin qoxriga qoxoti dhexdeeda laakiin waxa ka baxay qoxriga qoxotiga ninkii kale wax dilay uu carar Soomaaliya iska aadasiga daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkaas ayaan ku soo afmeerinaa sheekadii uu maanta inooga sheekeynayay Maxamed Cabdiraabi Ugaaska waxaan idinka raali gelinayaa xogaa codkaygu waa xiran yahay dhib badanna ma jiro hargab maan u maleeyaa maantana waxaanu idinkaga tegaynaa Maxamed Cabdiraabi anigoo ah Afakaadha Maxamed Axmed sidaas iyo nabadgelyo